abwaandaha Cabdi Gaas oo kamid ah abwaanada waaweyn ee Somaliland isla markaasna ah gudoomiyaha kooxda fanka ee Dayaxbaan oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa ka hadlay madal sugaaneed ay qabsanayeen ardayda dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim isla markaasna lagu soo casuumay oo ciidamada booliska Somaliland ay ka hor istaageen waa kan abwaandaha Gaas oo arrimahaasi ka hadlaya ardayda Sheekh Ibrahim oo noogu yeedhay inaanu barnaamij wacyigelina kala qayb galno waanu nimi ardaydii hawl bay galeen way shaqeeyeen ilaa shalay ilaa daraad meel bay xidhanayeen maamulaha iskuulka ayaana siiyey suucan buu noo soo dhaweeyey markii hore laba xiisood buu noo fasaxay ardayda barasaabka gobolka waanu soo maray shalay waanu u sheegnay isagana wacyigelintan ka wadno inaan maasooyin dhiirigelinayo wacyigelina ardayda waxbarashadooda iyo hadday isdhexgalka bulshada tahayba aan wadno wuuna soo dhaweeyey runtii shalayto saaka markii aan waxba xumayn aanu usoo diyaar garownay annagii iyo ardaydiiba xafladii ayuunbaa nalaga hor istaagay iskuulkii garanmayno sababta ay ku dhacday maamuli waa la hadalay wax jawaabana sii waayo mayo buu soo taagay maamuli waxaa dhacay shalayto wadno ogolay laba xiisood baad noo fasaxday maya un buu waa arrin iska cad meeshay ka dambayso meeshay tahay laakiin waxaan u yar sheegayaa un dadka annagu waxaanu wadnay wacyigelin wax dhaliil maanaan weyn halabuur baanu nahay dhaliishu markay noo muuqatana waxbaanu dhaliilnaa markaynu wacyigelintu taagan tahayna dadkayga waxbaa nuu sheegnaa iskagaba kaaya khaldana annaga labadaasu laba iskaga kaaya khaldana maaha saaka waxaanu ka hadlaynaa ardaydaana soo sharaftay noo yeeratay hawsha gashay yaanu halkaa u soo marray inaanu iyagana ku abaal marino maasooyin dhiirigelin aakhirtu in la sugaabaheed waxaanu sheegayno oo kabacdi ay ku tallaabo qaataan waxaanu sheegnay waxbayse na tuseeno waa waxaynu dadka ka wacyigelinaynay xumaantaas iminkaanu dhaliishaa sheegaynaa iminkaanu khaladaadka dadka tusaynaa iminkaanu ka gabyoonnaa ka maasoonaynaa silsida ka bilaabaynaa ku socodsiinaynaa annaga balaafkayo gidaarkaa baanu kula hadlaynaa ardayda gidaarkaanu doono hudheelkaanu doonaanu tegaynaa meel allaale meeshii noo bannaanba waanu kala hadlaynaa iyaguna in allaale inta xidhi karaan xidhi si kastaba haatee ciidamada ammaanka Somaliland ayaa abwaandaha Gaas ka hor istaagay madal sugaaneed ay ku soo casuumeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim waa Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed Andar telefishinka caalamiga CNA magaalada Hargeysa.